ciyaareedkii u dhexeeyay Hagan iyo sidoo kale naadiga Madbacadda ee gabdhaha ayaa shalay waxaa guul soo gaaray naadiga Hagan waxa ayna soo bandhigeen labada kooxoodba ciyaar aad u sareyso. Naadiga Hagan ayaa weli markaasi waxaa laga sareeyaa oo kaliya hal dhibic iyadoo sanadkan ay markaasi dooneyso inay horyaalka ay ku guuleysato waxaana dhigeeda ee Madbacadda ay shalay ay ciyaareen waxa ay soo bandhigeen ciyaar aad loo jecleystay. Daqiiqadihii ugu horeeyay ee ciyaarta 17 daqiiqo inta lagu guda jiray wax gool ah liskama dhalin ciyaar aad u adkeyd ayay ahayd. Daqiiqadii 20aad ayaa waxa ay markaasi bilaabatay in goolasha ay markaasi dhaliyaan waxaana ku hormaray gabdhaha Hagan. Ugu dambeyntiina ciyaartaasi waxaa guul weyn ee ku soo gaaray gabdhaha Hagan oo ay markaasi ka adkaadeen iyagoona keensaday 27 iyo sidoo kale 11 sidaasina ay guusha ku raacday gabdhaha Hagan waxaana ay ahayd ciyaar aad markaasi loo jecleystay kulan ciyaareedka ay markaasi soo bandhigeen. Maanta ayaa la ciyaari doonaa kulan ka tirsan horyaalka kubadda gacanta ee gabdhaha waxaa iswajahaya naadiyada ee kala ah Horseed iyo sidoo kale kooxda MMC oo maanta wada ciyaari doona. Labada kooxood ayaa markaasi isku soo diyaariyay kulan ciyaareedka xiisaha badan iyagoona kulankan ay ka dhigan tahay mid markaasi Horseed ay dooneyso in hoggaanka ay usii dheereysato iyadoona maalinta Talaadada ay markaasi la ciyaari doonto dhigeeda Hagan. Sidaas haddii ay ugu guuleysato horyaalka ayay mar kale qaadaysaa. Laakiin kooxda MC oo hal guul wadata ayaa dooneysa galabta in dhigeeda ee kooxda Horseed ay iska dhiciso si ay markaasi wadada guusha ay markaasi u gasho si kaalinta labaad ay markaasi u helaan. Waxaana la filayaa in labada kooxoodba ay ku soo bilaabaan ciyaar aad u sareyso qeybaha kala duwan ee ciyaarta waxaana inta badan la doonayaa in kulan walba ay ku xisaabtamaan labada kooxood si ay mid walba guul u gaarto. Laakiin gabdhaha Hagan ayaa daneynayn in kulankan ee Horseed ay markaasi ku ciyaarayaan dhanka markaasi MC ay doonayaan in ay ka adkaadaan taasina ayaa keentay in markaa durbadiiba ay fursad u helaan in galabta dhigooda ee markaasi Madbacadda waa dhigooda ee markaasi MC ay ka adkaadaan halka kulankii hore ee adkaatay naadiga Horseed waxaa laga adkaaday kooxda MC. Sidoo kale degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir ayaa soo bandhigtay 7 ciyaartooy oo markaasi kaga yimid dhanka ismaamulka Soomaalida ee Jigjiga waxaana ay markaasi soo bandhigeen xalay ciyaartooydaasi 7 ciyaaryahan ayay sanadkan ay markaasi keeneen horyaalka ee degmooyinka tartanka degmooyinka oo bilaaban doona ayay markaasi lagu soo bandhigi doonaa kulan ciyaareedka ugu horeeya markii isku aadka la sameeyo. Waxaana degmada Kaaraan ay markaasi ku guda jirtaa degmooyinka sida weyn sanadkan ay isku soo diyaariyay iyagoona doonaya in sanadkan ay markaasi fursad ay siiyaan ciyaartooyda kala duwan ee dalka. Inta badan ciyaartooyda degmooyinka qaarkood inta badan waxaa laga soo xulaa degmooyinka gobolka Banaadir qaybihiisa kala duwan iyagoona doonaya in markaasi degmo walbo ay la wareegto laacibkii u qalma in degmadan guul ay u keento. Degmooyin hore ayaa sidoo kale waxa ay soo qaateen ciyaaryahano ay laga soo xulay gobolada dalkeena Soomaaliya kuwaasoo qaarkood ay guulo ay la gaareen degmooyinka gobolka Banaadir. Sidoo kale degmada Kaaraan ayaa la filayaa sanadkan in waji cusub ay markaasi la soo baxdo maadaama ay ka mid tahay degmooyinka sida weyn ee ugu soo dhex muuqday tartanka degmooyinka ee gobolka Banaadir waxaana inta badan kooxaha ay doonayaan in rajada ugu weyn ay markaasi noqon doonto in guul ay markaasi la yimaadaan koox walba oo markaasi ay ka hormaato diyaargarowga degmooyinka ayaa markaasi socda qeybaha kala duwan tartankan ayaa la filayaa in isbedel weyn ee markaasi lagu sameeyo dhanka ciyaartooyda degmooyinka gobolka Banaadir oo markaasi qeyb u noqon doona. Degmooyin badan ayaa magacaabay macallimiin iyo sidoo kale in ay markaasi tartanka ay qeybo ugu badan ay markaasi ka gaaraan dhanka ciyaaraha ee gobolka Banaadir. Waxaa ka mid ah degmooyinka sida weyn Yakshiid iyo sidoo kale Dharkeenley iyo Kaxda oo markaasi kala magacaabay qeybo ka mid ah ciyaartooyda ee gobolka Banaadir iyagoona la filayo in isbedelkaasi ay ka miro dhaliyaan si ay markaa guul weyn ugu soo hooyaan
tartanka kubadda cagta ee degmooyinka gobolka Banaadir oo markaas yahay mid aad u